adiga dadka barakiciyay adaa xabada la dhacay adaa laayay waa been wax la sheegay kala dhamay wax allaale wax ka jiraan ma jiraan manana khuseeyo dagaalkaasi galina mayno wixii garxad soo galaana garxad kama mid aha yaa dumiye laascaanood ma jimba dumiye dad guryahoodii degan oo cabanaya oo cabasho keenay ayaa la laayay oo magaaladoodii la dumiyay cadawga garxajis baana waxa ku sheekeynay mana aqbalayo cadawga garxajisa sheegtaa waa waxa sheegaya carabow way waadiga guddi buu leeyahay reerku guddi kale wala garxajis guddi buu leeyahay guud baa joogay war garxajis guddi buu leeyahay haldar badan oo deegaanka baa joogay cadawga gudaha hadalkayga aad u dhageyso cadawga gudaha tahay adaa kamid ah goormay reerku midoobayaan hal xisbi ku hadduu midaysan yahay hal guddi ku midoobay hadduu midaysan yahay mala ka qaaday laba guddi ya laba xisbi meed ka qaaday hadduu midaysan meed ka qaaday arinta waan ku wada soconnaa waan ku taageersanahay inay diidaan oo ay dagaalka aan ujeedada lahayn ee kudlada gaar ay wadato inay ka hor yimaadaan oonay raacin waan ku raacsanahay imkana waan raacsanahay mana ogoli wax dagaala in meesha lagu qaadano ma ogoli ma beeshaada ama deegaanka garxajis baa garxajis wax allaale wax garxajis shaqo ku leeyahay walaa ciidankiisana aan u ogolayn walaa inay ka dagaalamaan baan aan ogolayn walaa inay dagaalka galaan xaaraan buu ka yahay namana matalaan wixii tagay guddi labaad male been bay ku sheegeen haday ku sheegeen Sultan Aadan baa la doortay maandhow been bay ku sheegeen baan ku wari been baa lagu sheegay reerku guddi buu leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idilaahantiinba halkani waa telefishinka Horyaal waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo la yeelanayno boqor Raabi oo kamid ah salaadinta dhaqanka ee ugu waaweyn ee Soomaaliland ugu horeen boqor ku soo dhaw telefishinka Horyaal waa dhawahay saan la wada socono boqor ugu horeen hadan ku bilaabo bal xaaladda guud ee dalka kulli dalka xaalado badan baa ka jira oo dhinaca amnigu ay kamid yihiin oo xaaladda laascaanood ay kamid tahay bal ugu horeen xaaladda dalka uu ku jiro hadda iyo arrimahaas waxaad kala socotaa iyo roolka madaxweynaha iyo xukuumaddiisa xaaladda dalku cid waliba way ka waraysaa xaaladda dalka dagaal baa la geliyay kudlada meesha joogtaana dagaalka gelisay dagaalkii ay geliyeen ee iyagu ay gaarka u geliyeen colaadiisii baa taagan iyaga wadanka khalkhalka geliyay siyaasad xumadooda ay gelisay khalkhalka wadanka waa dagaal aan macno badan ku fadhiin labada qole dhimanaya labaduba ay dhibaato ku tahay kooxdana u sababa dagaalka geliyay dalka way boqor san la wada socono hadda de arinta ugu weyn taagan waa xaaladda ka taagan gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood oo mudooyinkii u dambeeyay halkaasi uu dagaal ka socday adigu hadda xukuumadda eedeysay laakiin dad badani waxay aaminsan yihiin in garaadada ka soo jeeda gobolka Sool ayagu qayb ka yihiin hurunta ka socota colaadda dalkaasi ayagu mas'uul ka yihiin dadka dhintay dadka dhaawacmay iyo kuwa ka barakacay magaaladii ay deganaayeen Laascaanood bal garaadada gobolkaasi ka soo jeeda iyo magaalada Laascaanood iyaga sad u aragtaa dagaalka Laascaanood reer Laascaanood waxay tirsadeen dhibaato hal doorkoodii baa la laayay kudladana haysatay meesha oo maamulka uu ahayd markay ka caroodeen dadku hal doorkoodii la laayay mudaharaad bay sameeyeen mudaharaadkana nidaamka meesha uu ogol mudaharaadkii markay sameeyeen caruur yar yar oo cadhaysan oo waalidkoodii iyo dadkoodii la laayay haddana mar labaad ayay haddana rasaas dhaceen dadkii mudaharaadayay ee salmiga ku socday ayay xabad haddana ugu jawaabeen dhowr iyo 10 kale ka laayeen dhowr iyo 10 kale markay dileen xabadii wataa wali socota markii dambana waxay noqotay masaajidada lagu laayay waxa lagu laayay dukaamadoodii meeradoodii baa lagu laayay wadaadkii Yurub intuu ka yimi udalkiisa booqashada u yimi nabadda u joogay waa tii lagu dilay masaajidka dhiishiikiga lala dhacay qoryaha waaweyn watan wada daawanayeen inagu arkanay way boqor marka arrimahaas oo dhan la isku soo duubo
dad badan oo reer Somaliland arrinta siyaabo kala duwan bay uga hadleen adigu maxaad imka u aragtaa xalku inuu ku jiro waxaan u arkaa waxaan maqlayaa in laascaanood aan lagu duulin yaa dumiyey laascaanood majin baa dumiyey dad guryahoodii degan oo cabanaya oo cabasho keenay ayaa la laayey oo magaaladoodii la dumiyey magaaladii maamulka ay wahaayeen ee iyagu haysteen ayay magaaladii dumiyeen dadkiina laayeen oy barakiciyeen garaadada aad ii sheegayso iyagaa soo dhoweeyey oo yidhi annagaa u dirna ciidankayagii annagaa ku soo dhoweynay magaalada iyagaa ku soo dhoweeyey ya iyoma u qaldan yihiin marka leeyahay annagaa soo dhoweynay garaadada annagaa dadkan ku soo dhoweynay magaalada iyo markan iminka hadalladan ay sheegayeen iyomay khaldan yihiin waay garaadada waxaa loo soo dhoweeyey inay dadkooda la tashadaan oo deegaankooda ay ku soo noqdaan laakiin markay deegaankooda ku soo noqdeen seen ka wada arkaynay warbaahinta waxay soo saareen warmurtiyeed markay muddo badan shirayeen waxay go'aamiyeen inaanay Somaliland aanay ka mid ahayn Somaliland ay ka go'aan Soomaaliya wixii loo dhan jiray aan la kala jarin ay iyagu doonayaan taasimiyaanay qaran dumisnimo ahayn markii dadkoodii la laayay ee la isku hortaagay iyagiina lagu bilaabay xabadii nin cunaa la qabtay wuxuu doonuu sheegayaa way boqor haddana halkaas su'aal kaa weydiiyo haddiiba aad leedahay dadkoodii waa la laayay oo qaladkaasi dhacay oo waxyaabo badan ay jireen miyaan ahayn in siyaabo kale loo saxo ma waxay tahay in la yidhaahdo waan ka go'aynaa qarankii Somaliland miyaad muquulinaysaa adigu xabad baad igu muquulinaysaa markaad doonaysa inaad wixii sheegto adaa ii maamula markii dadkaygii hawldoorka haa aad dishay ee aan cabashada keenay idhin maxaa loo dilay dadkaygii eed haddana anigii igu dartay ee dadkii oo dhan aad laysay eed qixisay ee aad shaashadaha laga wada daawanayo wixii la samaynayey maxaad ka filaysaa adigu inay sameeyo markaa ii sheeg yaana ahayn in si kale loo wajaho intii la kala ii sheeg sida kale loo jarayo sida kale uu jaayay ii sheeg xabadda iga dulqaad buu ku yidhi aan wada hadal leh maalintii u horreysay dagaalku dhacay garaad jaamac garaad cali garaadka guud ee gobolka Sool waxa uu sheegay in kelmad caan noqotay oo ilaa imika saameyn yeelatay oo ahayd gala dagaalka taasoo la leeyahay nafa badan bay galaafatay dad badan bay barakicisay dad badan baa u dhaawacmay ma la oran karaa garaadkaasi wuxuu qayb ka yahay dhibaatada ugu weyn ee ka dhacday gobolka eed noqon mayso nin dadkiisii la laaynayo ka aamus oo iska aamiyo ag fadhi noqon mayso daliil u noqon mayso inaad ku eedayso way boqor haddaad ku soo dhawaato deegaankaad ka soo jeedo ama beesha garxajis arrintan markii la doonayay in nabadeynteeda laga qayb qaato oo guddi loo dirayay gobolkaasi deegaankaagu waxa markii hore ama guddida uu hogaaminayo Suldaan Cagdagude waxay ku xidheen belalay shuruud ah in doorashada la qabto oo xaaladda dalku ku jiro iyo badbaadada dalka deegaankaaga waxa kala weyn in doorasho madaxweyne la galo arrintaas ma jirtaa waxaan ku sheegayaa arrintaa waan ku wada soconnaa waan ku taageersanahay inay diidaan oo ay dagaalkaa aan ujeeddada lahayn ee kudladda gaare ay wadato inay ka hor yimaadaan oonay raacin waan ku raacsanahay iminkana waan raacsanahay mana ogoli wax dagaala in meeshaa lagu qaadano ma ogoli ma beeshaada ama deegaanka garxajis garxajis wax allaale wax shaqo ku leeyahay walaa ciidankiisaanan u ogolayn walaa inay ka dagaalamaan baanan u ogolayn walaa inay dagaalkaa galaan xaaraan buu ka yahay namana matalaan wixii tegey iyo waxa baamulaya nama matalaan markaa badbaadada dalka meedan qayb ka ahayn meedan dalkan ayda dagaalka ninba ridaan madaxweyne ka noqotaan dagaalka ninba meedan dagnin dhageeso dagaalka ninba ridaan qoori dagaalku qorshuu leeyahay macayba ku soo duulay dagaal ay wadanka dagaalka ay kuma soo duulin wadanka waa Somaliland adaa haysta adaa xukumayay adiga imkana waxan leh adiga dadka barakiciyay adaa xabada la dhacay adaa laayay waa been waxan la sheegay kala dhamin wax allaale wax ka jiraan ma jiraan manana khuseeyo dagaalkaasi galina mayno wixii garxajay galaana garxaj kama mid aha way boqor marka sidaa u hadlayso miyadan doonayeen inaad biri dalka xukuntaan oo biri timaadaan oo dalkan aad qayb ka noqotaan
maanta marka dalku xaalad adag ku jiro miyaanay ahayn deegaanka aad ka soo jeedaa inay qayb ka qaataan dagaalka eeg dagaalka waxaan ku odhi macnaa lagu galaa dagaalka cadow kuma soo duulin dalka cadowga inuu difaaca xaq baa laygu leeyahay nin kale la kala jari maayo dalka oo Soomaaliya doonaya nin caruurtiisa cadow ahayn isagu waxaan ku odhi nin caruurtiisii la laayay oo maatidiisii la laayay oo haldoorkiisii la dilay oo 15 sano dagaal ku socday markuu damqaday wuxuu doono oran karaa macadii hor wadaadu ka waxaad ka sheekaysaa oo aan doonayaa inay ka hadlaan dadka waxgaradka cuqaasha wadaadada inay xumaanta taala wadanka ka hadlaan doorashada in la qabtaana waa qasab la bari maayo waa qasab haddii la qaban waayo doorashadana kudladan dagaalka riday xal la keeni mayso hambadana way dhammaynaysaa labada qole dhintayna aad baan uga xumahay kuwa xagan ka dhintay iyo kuwa xagga ka dhintay aad iyo aad baan uga xumahay mana keenayaan xaaladan ku jira oo dad dhan ilaa imika ay maqan yihiin oo sanaadiiq aan la geyn karin oo doorasho aan ka dhici karin ayaa doonaysaa inay doorasho dhacdo miyaa dalka waxa dagaalka looga riday in doorashada la baabi'iyo ayaa dalka looga riday dagaalka xabadan dhacasa waxay u dhacasa garxajis baa kursiga fuuli ayay u dhacasa mana dhacaso garxajis oo doorasho gala mooyaane in wax waana iyo nabad ka dhacdo waa waxaan dhacay way sultan waxaan la soconaa deegaanka aad ka soo jeedo hadda ama beesha garxajis markii hore laba xisbi bay lahaayeen ama laba musharax bay lahaayeen imikana laba guddi bay yeesheen maxay tahay tafaraaruqa iyo isfaaham la'aanta intan leeg ee beeshaada ka dhex taagan miyaadu ku yiri waxba kama jiraan waxa aad sheegtay saali waxba uga jiraan wax halaal wax wadan iyo cidwaayo wax halaal wax ka jiraan labadan xisbi labadan guddiye imika jiraan labadu waa alliance waa isku mid meel bay ka wada taagan yihiin arrinta isku mid bay ka yihiin waana been cadowga garxajis baana waxa ku sheekeynaya mana aqbalana cadowga garxajis sheegaysa waa waxa sheegaya عربو واي واضية هذا يديني واضية واي لaba xisbi baad ayaa hore la haydeen imikana laba gudi labadan gudi ee deegaanka aad ka soo jeedo keega aad ugu taageersan waxba kama jiraan gudi buu leeyahay reerku gudi kale waa la doon garxaj gudi buu leeyahay gud baa joogay war garxaj gudi buu leeyahay hadbar badan oo deegaanka baa joogay cadow gudaha hadalkayga aad u dhageyso cadow gudaha tahay adaa kamid ah gudi buu leeyahay reerku gudi laad male been bay ku sheegeen haday ku sheegeen سلطان آدم بلا دورتي ماندوي بين بيكون شيء بانكوري بين بالغو شيء ريركو جودي بو ليهاي جودي دنا وا تاغع اللباح وانا بين waxa kale la sheegayo way سلطان waxaan ognahay munaasabadii lagu doortay madax dhaqameed badan baa joogay dad badan oo saameyn deegaanka ku leeyahay joogay suldaankii guud ee Soomaaliland baa joogay Suldaan Daawud maxaad u dafiraysaa gudida hore ay gudaa weydiitaa aniga hay weydiin ma weydiin aniga hay weydiin way ugu dambeyn boqor saad u aragtaa hogaaminta Suldaan Cadde Gude waa waafaqsanay ana sameeyay ay ana sameeyay waafaqsanay marka taa sameysay baad waafaqsantay takallad ka soo jeeda deemayr reer kooda ma samaystay ee kamid baan ayanu waa wixii reerku ku midaysnaa goormay reerku midoobayaan hal xisbi ku midoobayaan hal gudi ku midoobayaan haduu midaysan malaka qaaday laba gudi يا لبا حسبي ميد قاده haduu mideysay meed ka qaaday waka ma shacabka Soomaaliland ba arkaya iska ilow ana Soomaaliland ay xaaladda guud ee dalka si guud markaad u eegto maxaad iyada halka maxaad u aragtaa halka waxaan u arkaa xabadda in la joojiyo qasab lagu joojiyo ciidan kale la kala qaado xal uma keen karo kudladan meesha joogta xal uma keeni karaan Soomaaliland waa inay iscasilaan waa inay baneeyaan meesha waa inay meesha ka tagaan doorashada waa la qabtaa way dad badan markaad hadlayso waxay ku arkaan nin madaxweyne biixi mucaaradad wixiisa ay dhaafsan tahay oo shakhsi nacayb ku jiro arintaas aad aragtaa abtii haama abtaan wahay nagama dhaxeeyo wax shakhsi nacayb waxaan shaqadahay nagama dhaxayso waka laakiin hadana dad badan ma dhaliishaada marka dadka iyaga
waxay arkaan inay waxa Ma iyaga u taallaa. tahay waxa leeyahay boqorka iyo madaxweynaha ma xora dhex maray kuwaas iyagay u taallaa abtaan u ahay isaguna abtuu yahay markaa ka wax ka soo saaraya isagay u taallaa maaha aniga abtiga markaa miyaan ahayn waxyaabo badan aad uga tudho oo wixii mucaaradada aad si sax ah inaad u toosiso abtigay dadka waxgaradka ah iyo cayaanta Somaliland waxay ku yiraahdeen waxaan ahayn oran maayo ha aqbalo isagu way boqor ugu dambeyn xaaladda guud ee dalka markaad eegto deegaanada kala duwan ee reer Somaliland siyaabo kala duwan bay uga hadleen laakiin deegaankaagu waxa la leeyahay si dhaba oo dalka loo turayo uga ma qayb qaadanay xaaladda dalka markaad eegto oo mar walba wuxuu la safeeyahay garaadada doonaya inay kala gooyaan dalka oo Soomaaliya ay la saftaan wal arinta ka warramay deegaankaygu waa deegaanka wadanka majority ka ah lixda gobolba majority ka yihiin deegaankaygu ee wadanka la sheegayo waa raggii xoreeyay waa ragga wadanka leh rag looga baqayo maaha 30 sannadood dhowr iyo 30 sannadood naf iyo maal waa dalkay ku baxeen waa dadka la laynayo waa dadka Somaliland cid qura oo tiraahdo war dadka dulmiga laga daayay laga yahay marka waxaan leeyahay wal annaga deegaanka ah dalkana ah dalka majority-giisu waa annaga lixjecladiisu waa annaga wanaagiisu waa annaga ninka isiraahday ka celiyo iska hortaag been buu sheegay wadanka waa in dadkiisa loo ogolaado waa in dadkiisa doorasho loo qabto haddii lagu tartamo cadaalad la helo waa soo dhaweynana wixii soo baxaa laakiin anaa haysanaya cadowgaadaana ii yihiin dadkii dalka lahaa adeer waxaanu aqbali karana maaha waad mahadsantahay boqor kaasi wuxuu ahaa boqor Raabi oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee ugu waaweyn ee Somaliland oo telefishinka Horyaal ugu warramayay magaalada Hargeysa barnaamijka waxaa idila socodsiinaya anigoo Liibaan Cismaan Caliya waxaan mahad celinayaa saaxiibkay Cabaase oo dhanka kamarada naga caawinayay anigoo Liibaan Cismaan Caliya ay idila socodsiinayay intan barnaamij lamada ku kulmi doono waxaan idinka tegaynaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh